السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad leh. rabbiga subxaanahu wa tacaala suuro geliyey madashan quruxda badan iyo barnaamijkan quruxda badan ee duwalkan daala lagu qabanayo oo sanadkiiba mar la qabto. ugu horeyn waxaan uga mahad celinayaa walaalaha soo abaabulay habla iyo namaba sida ay isaga xilqaameen tamarta iyo waqtiga iyo xoogga iyo jeebada ay geliyeen barnaamijkan oo xilligii la bilaabay dhowr sano ka hor ilaa hadda si wanaagsan u socda. inta badan inaga waxay nagu adag guud ahaan Soomaalida marka laga hadlayo joogteynta in wax la joogteeyo. fikrado wanaagsan waa la helaa, dad badan oo karti leh waa jiraan, waxyaabo badan laga yaabo in la awoodi karo oo la bilbilaabaa waa jiraan, laakiin haddana waxa yar dadka wax joogteeya aad iyo aad bay inoogu yaryiin. waxa wanaagsan haddii la joogteeyo waxa hubaala in horumar wanaagsan laga gaadhayo lana dhadhaminayo maxsuulka dadaalka iyo hawsha la galay. aad iyo aad baan duco iyo mahad celin iyo runtii boorin intaba inay sii wadaan ah. kulleyba hawlaha caamka marka laga shaqeynayo lama mid aha hawlaha gaarka qof leeyahay uu ka shaqeynayo lama mid aha. tacdiyaadka ama challengeska caqabaduhu marka arrin caama doonaysa inaad ka shaqeyso ummaddu leedahay oo wax loogu qabanayo wax loogu tarayo waxa iska badan caqabadaha cidda wada ay la kulmayso. kuwaana insha Allah tacaala in loo adkaysto maalinba mid baa laga talaabaye ayaa muhiima. hadraawi baana hore u dhameeyey raxmatullaahi calayh suugaantiisii qiimaha badnayd mid ka mid ah ku sheegay oo yidhi inta maanku gaajaysan yahay guuli waa weli. waxaa laga yaabaa waxa ugu badan ee xoogga aynu saarnaa inay tahay dhaldhalaalka iyo hantida iyo daaraha iyo waxyaabaha la midka ah iyo shahaadooyinka oo si oroda loo qaato, laakiin in maskaxdu bulshada guud ahaan garashadeedu ay intan kor uga kacdo oo wax iska bedesho waa lagu dadaalayaa, laakiin waxaad moodaa weli inaanay xaqeedii helin. dad dadaalaya waa jiraan oo qaybaha kala duwan ee bulshada ka mida, dhalinyaro badan ay ka mid yihiin, culumo ka mid yihiin, waxgarad kale iyo dabcan hogaamo dhaqameedba ay ka mid yihiin oo iyagu isku dayaya intaa wacyi gelinaya bal bulshadu inay korto oo ay halka hadda ay taagan tahay kor uga kacdo si danaheeda ay wada leedahay ay u garato. barnaamijkani ama guud ahaan soo bandhigyada buugta ka Burco lagu qabtay iyo kuwa kaleba waxa hubaala inay isbedel ku sameeyeen la dareemi karo heerkii wax akhris ee bulshada qaybaheeda kala duwan oo kolleyba waxaa la dareemaa iminka in dadku buugta ay ku xaragoodaan la qoray oo ay sitaan. waa dhici kartaa tirada akhrisay ee sida wanaagsan u akhrisay marka la daraaseeyo ama la istaarigareeyo amaba case study lagu sameeyo inay yaraan karto, laakiin waxaad arkaysaa goobaha buugta lagu soo bandhigo in aad loo joogo, laga soo wada qayb qaato, dhalinyaraba ha u badnaato. marka 20 sano ka hor loo eego oo maanta la barbar dhigo si wanaagsan horumar wanaagsan baa moodaa in dhinaca talaabooyin hore looga qaaday. inta la weeleeyay unbaa mudan in la isweydiiyo iyo sida buugta loo akhriyay iyo sida looga faa'iiday unbaa mudan in la isweydiiyo. iyaga laftooda u baahan topics u baahan in xaqooda la siiyo laga hadlo. waayo qofku markuu buugga soo qaato si uu uga faa'iido sideeba u akhrinayaa, faa'iidada ku jirta sideeba ula baxayaa, sideeba u xusuusnaanayaa,
sidee buu fikradahaas wanaagsan ee uu helo u dhaqangelinaya ee constructive-ka ah kuwaasi waa kuwa weli u baahan in la qiimeeyo oo imankaba dee waxbarashadeennu way badan tahay laga soo bilaabo milcaamadaha ilaa iyo jaamacadaha 20 sano ka hor waxbarashadii jirtay iyo tamaanta jirtaa badan laakiin marka xagga tayada la eego dadka marka weelka waxbarashada bixinaya lagaba yimaado dadka waxbaranaya ama waxbartay ama shahaadooyinka wata oo aad u fara badan marka la eego intee bay korsan yihiin kuwa iyagu aan waxba baran iyo iyaga waxa u dhaxeeya waa maxay aragti ahaan maxay ku kala duwan yihiin dhacda maalmeedka sida loo cabirayo maxay ku kala duwan yihiin hableeynamaba arrimahaas aad muhiim u ah haddii aynu noqono bulsho wax akhrinayso oo wixii ay akhrisaaba ay isdhaafinayso oo aan weelaynayn oo qofkii aqligiisii iyo fikirkiisii iyo ra'yigiisii aan isbedelba ku samaynayn de markaa dhaqaalaha faraha badan iyo buugta la qorayo iyo dadka dadaalaya soo bandhigaya ee golayaashan iyo madalahan quruxda badan sameynaya marka dadaalkoodii meel cidlaha buu ku dhacaya waxa aad muhiim u ah dhinaca kale in la iska kaashado iyadoo tan aan la joojin oo la wado in la iska kaashado sidii buugta iyo waxa la akhrinayay cilmiga la qaadanayay iyo dadaalka la sameeyay iyo buugta kale la soo turjumay iyagana cilmiga amaba dee kulleyba koriinku uu ku jiro in si wanaagsan loo weeleeyo ay aad iyo aad muhiim u ah dhinaca kale iyada lafteeda akhriska mawaadiicda diinta ku saabsan iyo barashadooda iyana waa arrin aad muhiim u ah oo ay tahay in qofku si uu qoyo uu akhriyo taasaana base u ah ama sees u ah xaqiiqadii haddii uun la akhriyo inta maadiga uun la daba joogo amaba qisaska iyo sheekooyinka iyo dhacdooyinka la daba joogo amaba waxyaabaha personal skillska uun la daba joogo laakiin wixii aakhiro iyo ilaahay ku xidhnaa iyana dhinac la iska dhigo waxa hubaala cilmigaasi inaanu laba lugood lahayn lug uu ku sii istaagi karana inaanu lahayn baa hubaala dadaalkaas la samaynaya marka iyadana waxaan baraarujin lahaa iyadoo wax la akhrinayo oo la dadaalayo wax la qorayo haddana in xoogga la saaro sidii culumta shareecada iyo diinta ee adigana shakhsiyan ku quseeya ka muslim ahaan bulshadeennan quseeya sida tooska u taabanaya mustaqbalkeena xaqiiqiga iyagana in la akhriyo oo la barto aad iyo aad bay muhiim u tahay marka waxaa suuro gelaysaa laba shimirood in hal dhagax lagu wada dilo cilmigii kowniga ahaa oo aad gacanta ku hayso oo aad barato iyo kii sharciga ahaa ee ilaahay soo dejiyey si aynu ugu dhaqanno oo iyagana la barto ayaa markaa helaya dabeetana takaamul ama way isdhammaystirayaan oo cilmi fadhiya meesha ka soo baxaya haddii kale haab uun bay ku jiraysaa marka aan u daadego toobiga halkan inoogu yaalla waxaan filayaa waqti badanna waa fadhideen lecture horena waa soo qaadateen inaynan hoos aad ugu dhaadhacayn summary iska kooban ayuun baan samayn doonaa kadibna wixii su'aalaha iyo wixii contributiona ee aad rabtaan inaad samaysaan ayaad insha allah tacaala samayn doontaan marka hore nabadda waxaan filayaa in laga wada dheregsan yahay ahmiyadda nabaddu ay leedahay iyo saamaynta ay nolosheenna ku leedahay labadaba in aad looga dheregsan yahay qofku dadku ay garan karaan ayaan rajaynaya inkastoo laga yaabo inay aad u sii garan karaan dadkii soo maray colaadaha kulul oo maanta marka loo eego colaado waa jiraan nabadda dhaawacyaa ku yaalla weli khatar bay ku jirtaa laakiin marka loo eego xaalado horeo laga soo maray laga soo bilaabo dhowri 70-adii ilaa iyo hadda waxaa hubaala qofkii xaaladaha joogay kuwii ugu dambeeyey 9aadkii burco hargeysa berbera colaadihii ka dhacay wuxuu garan karaa qiimaha ay nabaddu leedahay ayuu garan karaa nabad isu qeexi mayno marka la doonayo in la qeexo nabad
waxay leedahay macnayaal badan waxay u qaybsantaa qaybo waxay leedahay aragtiyo cilmiya intaaba way leedahay waxay leedahay macnayaal iyo qaybo kala duwan oo ay u qaybsan tahay iyo aragti cilmiya oo hadda jaamacadaha lagu barto oo maadooyin la barta ah nabad hadda jirta sidii loo ilaalin lahaa ay u joogtoobi lahayd ay u waari lahayd looga ilaalin lahaa in nabar ku dhaco iyo meelaan nabad ku jirin sidii nabad loogu heli lahaa oo dadka loo nabadayn lahaa oo nabadda loogu soo celin lahaa intaba hadda waxay noqdeen waxyaabo si cilmiya loo barto oo loo daraaseeyo oo meelihii adduunyada colaaduhu ka dhaceen taariikhii hore iyo taariikhii dhexe iyo kuwa hadda jira intaba intaa waa la daraaseeyaa dabeetana waxaa laga soo saaraa aragtiyo cilmiya oo ay ku sheegaan nabad taban iyo nabad togan nabadda togan iyo nabadda taban taqriiban ilaa sagaashanaadkii meelaha ayay erayadaasi soo baxeen ama eray bixintaasi ay soo baxday marka nabaddu inaga af Soomaali ahaan marka la eego kelmaddaas aan isticmaalnaa laakiin adduunyada dhowr kelmadood oo kale ama labada luqadood ee kale aynu sida wanaagsan u naqaano ingiriisiga iyo carabiga kelmado kala jira oo la isticmaalo oo kale oo ay marka noocyo kala noqonayaan inaga waxa soo raaci kara kelmadda nabadda marka af Soomaaligeena aad eegto oo qaybaha qaar ay ka maqan yihiin ama eray bixintii ama magaci loo bixin lahaa aan wali qaamuuska lagu hayn kelmadaha laakiin la isticmaalo badqabka kamida oo nabadda uu soo hoosgeli kara ayaa kamida nabaddu waa wax muhiim u ah guud ahaan nafleyda oo dhan haddii ay bini aadan yihiin haddii ay xayawaan yihiin makhluuqaadka ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala dhammaantood nabadda asalka ah waa taa weeye nafleyda qusaysa oo u baahan in iyadana waqtigeeda iyo xaqeeda la siiyo si fiican looga hadlo waxa ay nabaddaasi ka bilaabmaysaa marka xagga bini aadanka la yimaado qof ama fardi ama individual ay nabaddaasi ka bilaabmaysaa waxaana u qaybsamaysaa labo mid macnawiya iyo mid xisiya amaba marka xagga kale cilmiga loo dhaqaaqo waxay noqonaysaa mid concrete iyo mid abstractia marka la siiro dul taago waxa weeye qofka marka laga bilaabo qoyska lagu xejiyo عائلada ama jeeska halka degan lagu xejiyo ilaa bulshada ilaa wadanka la gaarsiiyo ummadda oo dhan la gaarsiiyo ilaa caalamiyan ay gaadho nabaddu labadaas ay u qaybsantay in ay noqoto mid macnawiya oo aan ahayn wax inta la soo qabto miiskan la saarayo la taaban karo aan ahayn laakiin la dareemo markay maqan tahayna la dareemo qofku dareemo qoysku dareemo bulshadu dareento wadanku dareemo caalamku dareemo bini aadanka oo dhami dareemo xayawaanaadku ay dareemaan iyo mid xisiya ama concrete oo la taaban karo oo la oran karo waxani waxaasa ka siiya sababta darteed nabadi kuma jirto oo ay ka maqan tahay ama waxani waa wax caafimaad qaba dabeetana nabad baa ku jirta labadaas cilmi ahaan loo qeybiyaa la taaban karin xisiga waxa ka bilaabmaysaa amniga ah ee qofku nabadgelyo ahaan uu naftiisa ku dareemayo ay ka bilaabmaysaa waxaana inaga filan xadiiskii nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ku tilmaamayay marka af Soomaali ahaan lagu sheego nabigu wuxuu leeyahay kaleey salaatu wasalaam qofka idin ka midka ah ee nabad ku soo toosa xadiis macnihiisu yahay isagoo caafimaad qaba oo nabad haysta maalinta wixii uu cuni lahaana haysta waxa uu ka dhigan yahay sidii qof adduunyada oo dhan gacantiisa la soo galiyay ama talada dunida oo dhan gacantiisa la soo galiyay xadiiskaasi nabiga kaleey salaam wuxuu ku tilmaamayaa qof soo toosay
isagoo nabad qaba caafimaadkii xataa waxa ka horeeyay nabadda waa nabaddii xisiga ahayd ee la dareemayay qofku dareemayay ama qoysku dareemayay ama bulshadu dareemaysay ama waddanku dareemayay ama makhluuquba dareemayay waa qof aan baqdin dareemayn ama cabsi dareemayn oo aanay colaadi ku dul furnayn goob colaadeed aan joogin nabad ku soo toosay jaarkiisa iyo qoyskiisa iyo meesha uu joogaaba ay nabad tahay oo haba yaraatee wax walwala oo naftiisa baqa geliya aan qabin haba yaraatee wax walwala oo naftiisa baqa geliya aan qabin talabaadna caafimaad qaba oo wax xanuun oo isaga iyo qoyskiisa iyo ehelkiisa ay la subaxa la soo tooseen aanu jirin wixii uu maalinta cuni lahaana haysta marka halka waxaanu u daliishanaynaa in nabadda xisiga ama concrete-ka ah ee asalka ah ay tahay taa aynu sheegaynay ah bilaa baqdinta bilaa cabsida nabadgelyada aan colaadi jirin qofku aanu ka baqanayn haba yaraatee naftiisa aanu u baqanayn ubadkiisa aanu u baqanayn qoyskiisa aanu ka baqanayn waa nabadda koowaad ee uu haysto wey waana ta asalka ah nabadda labaad nooca labaad si aan u fahanno waa taa aan sheegay ee la taaban karo ee concrete-ka ah ee la dareemi karo labadaba la isku dari karo waxaa dunidu u taqaanaa amni qowmi oo marka luuqadaha kale loo tago waxa ay ka dhigaan amni qowmi waa maado iyadana la barto oo qofka ilaa bulshada qofka qoyska bulshada ilaa iyo inta ka sareysa intaba qusaysa oo taabanaysa way tii marka hore aynu ka hadlayno waxay ahayd amni qofka ka bilaabmaya ama nabadgelyo qofka ka bilaabmaysa ilaa dusha soconaysa ilaa waddan ilaa caalam tagaysa weeye tacriifaadkeeda marka la soo raro waqti ahaan wax badan bay nagu noqonaysaa sidaan soo diyaariyay marka inaan summary yar ku sameeyo ayuun baan u jeedaa marka qaybta hore waa qaybta asalka ah ee qofka caafimaad nabadgelyadiisa inaanu baqdin dareemin inaanu colaad iyo meel goob uu naftiisa u baqanayo ama qoyskiisa u baqanayo ama ehelkiisa u baqanayo aan qofku joogin ama aanu ka soo dhex toosin waxa raaci karaa marka qoys la istaaga haddana qoyskaasi inaanay haba yaraatee baqdinta iyo cabsidaasi ku jirin waxa raaci karaa in marka ilaa bulshadaasi inay nabad tahay maanta markaaynu burco ka hadlayno waa magaalo nabada oo nabadgelyo ay ka jirto nidaamna uu ka jiro dad kala dambeynna ay ka jirto dadkuna aanay qabin cabsi ah ama caawa ciidi ku timaada oo wax ku yeeshaa aroortii aan lala soo toosayn oo laga yaabo in waxa laga baqdaa inay tahay tuuga uun laakiin sida xagga dambe aynu ka sheegi doonno nabadgelyadeennu aynu haysanaa weli waxaad moodaa in si ay hash u tahay oo aan sugnayn oo weli tiirarkii ama seeskii ay isku taagi lahayd nabarro ay ku yaalaan oo ma ay dhici karto iyadoon la filayn maalin uun in layskula yaaci karo dadku iyagoo kooxa ah iyagoo qabaa'ila iyagoo afkaar iyo wax kale kala qaba maalin uun iskula yaaci karaan wax dhici kara inay tahay oo nabaddaasi aanay ahayn mid kulleyba ilaa hadda waa sida beedka wax la hayo uun laakiin wax siid inta geed lagu riday xididaystay soo baxay laama saaray ubax soo saaray eerkii la odhan jiray waa nabad neg weeye la odhan jiray weli waxaad moodaa in halkaa aynan taagnayn insha allahu tacaala ilaahay baynu ka baryaynaa in halkaana la gaari doono marka qodobka labaadna waxa weeye taa caamka ee concrete-ka aan sheegayay oo ah amni qowmi wax la yidhaahdo amni qowmigu wuxuu ku saabsan yahay inta soo hadhay markii nabadgelyadii xisiga ahayd ee aan sheegay kadib waxa meesha yaalla tii concrete-ka ahayd baa meesha taalla oo ah in qofkan nabadda ku soo toosay uu helo caafimaad nadiif ah uu helo waa amni qowmigiisa uu helo dhakhaatiir nadiif ah oo aanu ka baqanayn uu helo dawo la aaminsan yahay oo nadiifa uu helo oo la soo baadhay oo haba yaraatee
aan dadka xanuuno kale ama side negative oo kale aan ku keenayn amni qowmiga ka mid tahay in xanuuno cidi ay soo waarido oo ay dadka u keento in aamin laga yahay noocii loo keenaba oo marka ay uu jiro barnaamij ama qorshe ama istiraatiijiyad la isaga ilaaliyo xanuunada la isu soo safriyo oo maanta dunida aad ugu badan in bulshadan oo iska degan in xanuun loo soo safrin karo laga dhex abuuri karo dabeetana bulshadaas dhibaato badan xanuunka uu ku keeni karo marka waa amni qowmi oo arrimaha u baahan dowladnimada iyo dadka talada caamka gacanta ku haya in ay qorshe u leeyihiin arrimaha u baahan bay ka mid waxaa ka mid ah cuntada in cunto la helo oo cuntadu ay safety iyo security labadaba oo dadku cunto ku filan ay helaan amni qowmiga ka mid tahay nabadgelyada hoos timaada oo dadku haba yaraatee ay aanay dhicin noloshooda inay kulushahay oo arsaaqda iyo waxa marka laga yimaado ilaahay dadka ku kala duway laakiin wax soo saar cunto oo dadku ay leeyihiin oo ku filan oo aan gacan kale ka iman oo tooda ah inay helaan si taladoodana ay u yeeshaan iyagu u maamushaan oo caqligooda iyo ra'yigooda iyo calooshooda waxa galaya ay isu yeeshaan in taana amnigaana in la helo aad iyo aad bay muhiim u tahay oo waxyaabaha inaga dhiman cilmiyan adduunyaduna maanta ay isku oo marka la yiraahdo waxaan la yiraahdo badqabka cuntada waxyaabaha la yiraahdo cuntada inoo timaada lafteeda in la eego waxyaabaha ay ka samaysan yihiin cunto asalama tahay sharaabka imanaya waxa afka la geliyo ama la cabo ama la cuno waxyaabahaas oo dhammi waxay u baahan yihiin amni qowmi ba u baahan yihiin inagu waxaynu ka fikiraa un xabad la rido iyo qof midi qaata iyo qof waxa arrimaha ku meereysta inta hadii la helo waxa muhiim ah talaabada xigtay barbar socotaa in laga barbar wada ay tahay waxa weeye kuwan imanka aan ka hadlayo bulshadu hadii nabadan asalka haysato kuwan hadaanay haysan tii asalkaana way dhaawacmaysaa burbur baa ku imanaya dabeetana taas waxa keenaysaa bulshadii in ay weydo deganaanteedii ama istiqraarkeedii iyo nidaamkii u samaysnaa intaba inay weydo ayaa imanaysa marka waa muhiim cuntada kamida amni qowmi loo sameeyo oo waa waxyaabaha nabadgelyada hoos imanaya oo dadka mutacalimiinta ee dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay inay focus gareeyaan oo arrimahaas eegaan aad bay muhiim u tahay waxa kamida deegaanka haddii hawada ay tahay hadday badda tahay hadday dhulka tahay dhul beereedka tahay hadday xoolaha tahay aynu dhaqanno haddii kalluunka badda ku jira ay tahay haddii macaadinta iyo batroolka iyo nicamka kale ilaahayna siiyey ee dhulka hoostiisa ku jira ama hawada saaran ama badda ku jira ay tahay dhammaantood amni ba u baahan yihiin ama nabadgelyo u baahan yihiin waa waxyaabaha amni qowmiga ka midka ah ee concrete-ka ah waxyaabaha dunidu maanta isku haysato colaaduhuna ay ka dhashaan weeye waxaaba la sheegaa hadda in badda iyo bariga iyo cirka intaba gacmaha dadka Soomaalida aanu ku jirin dad kale ay gurtaan waxay doonaana ay ka yeelaan siday doonaana ay ula tacaamulaan marka waxyaabaha asalka u baahan in xoog la saaro xalalkooda laga fikiro ayay ka mid tahay amni qowmigu sidaas uu farabadan yahay dhulka kamida xuduudaha kamida meelaha umadu ay leedahay ee muqaddasaadka aba kamida sidii loo ilaalin lahaa aqliga bulshada ayaa kamida muqaddaraadka iyo waxa dadka aqligooda wax yeelaya waxa hantidooda wax yeelaya waxa caafimaadkooda wax yeelaya waxa deegaankooda wax yeelaya waxyaabahaas oo dhammi waxa u baahan yihiin in barnaamij laga yeesho ama qorshe istiraatiijiga oo bulshadu ay leedahay inuu jiro oo laga yeesho ay aad iyo aad muhiim u ah amni qowmiga markaan ka baxo labada qaybood ayuunba nabadda ugu muhiimsan marka la daraasaynayo qaybta hore oo kulliba qeexideeda iyo sharaxeeda iyo waxa laga yiri in la soo wariyo ay aad u farabadan yihiin amni qowmigana intaasaynu ku soo koobi karaa waa laba dhinac oo u baahan labadaba in si fiican loo daraaseeyo amniga macnawiga ah sida tooska qofka iyo qoyska iyo bulshada iyo wadanka iyo ummadda u saameynaya sidii loo ilaashan lahaa loo dhowri lahaa seeskiisa ama seesaska nabaddu ay ku dhisanto ama ay ku dul dhisan tahay sidii loo ilaashan lahaa waxa weeye waa arrin qodob aad muhiim u ah marka taasi ay dhisantana talabaad hadii la waayo lagu dul dhisay tan lagu ilaalinaya hadii la waayo iyadana burburka aan sheegay ayaa imanaya
ولا دريمي كرامان تلبدوا بوهاش أما لبدوا بآد يآد وما بسنا أما وما بسنا نبتقليده هوري وانيقا شاقي ولي خلافاتك يمرنك يسئريتك أياتشرة dadku way inay iskhilaafaan oo is-eryadaan ayaa iska badan ama dhul isku qabsadaan ama siyaasad isku qabsadaan ama wax kale isku qabsadaan kuwaas oo khatar ku ah nabadda asalka aynu sheegayno nabaddaasi faa'iidada ay leedahay maanta qof looga sheekeynayo ama looga waramayo ma jiro waxbarasho hadii ay tahay noloshii guud ahaanba tacmiirka magaaladu maanta ay leedahay burco waxa ay ku leedahay waxa weeye oo ay ku fadhidaa waa nabadda ka nabadgelyada waxa lagu soo ururin karaa ama nabadda lagu koobi karaa waa gogosha ay noloshu ku fadhido nabadda waxa lagu koobi karaa macnaheedaba waa gogosha ay noloshu ku fadhido haddii la doonayo nolol in la noolaado waa in ay nabad jirtaa nabaddaasna waa in seeskeedu uu adag yahay ama tiirarkeedu ay adag yihiin seesna waad garanaysaan wax kastoo la dhisayo sees baa looga bilaabaa sees baa loo qodaa seeskaasaa loo adkeeyaa labada qodob marka laga gudbo waxa isweydiinta meesha taala ay tahay marka inaga hadda laynoo eego nabadgelyada aynu sheegnay qaybaha ay ka kooban tahay iyo saddexda qodob aynu ka hadalay nooca ay ka kooban noocyada ay nabadgelyadaas ka kooban tahay ama nabaddu ay ka kooban tahay labada aan sheegay heerarka jiritaan ay nabaddu leedahay oo qof ka bilowda qoys ku xiji bulshada gee ilaa wadan gaadhsii shacab iyo ummado isu gee adduunyada oo dhan gee heerarkaas nabaddu ay ka kooban tahay marka hore qof bay ka timaadaa qoys bay tagtaa sidaas ay markaa ku kortaa ilaa xagga sare ay ku tagtaa haddii qofku aanu nabad haysan macnaheedu waxa weeye bulshaduna nabad ma helayso way adag tahay inay nabad hesho haddii bulsho aanay nabad haysan way adag tahay in shucuubta eeriyada ama mantiqada wada degani ay nabad helaan way adkaanaysaa ahmiyadda ay nabaddu leedahayna waynu iska soo koobnay oo aad ugumaynaan hadal waa la garan karaa qof kastana uu dareemi karaa nabadgelyadu inay ahmiyad leedahay xadiiska nabiga kaleey salaatu salaam sharaxnay af Soomaaliga ku sheegnay ayaa inaga filan waxa aan uga gudbayaa markaa qayb nabadan nek ama nabadda sideedaba maxaa sees u oo ay tahay inaynu ilaashano oo aynu isweydiino haddii iminka nabarra ku yaalaana in aynu daweyno oo aynu wax ka qabanno taas aad muhiim u inta badan muran kama dhasho hadal badan oo ku jiraana ma jiro qaybta hore aan ka hadlay ee nabadda ku saabsan ahmiyadeeda qeexideeda qaybaha ay u qaybsanto waxa ay tarto waxa ay tahay heerarka ay marto cilmiyan qof cilmi leh iyo qof aan lahayn oo aan mutacallin ahayn oo aan wax baran labadaba oo caafimaad qaba iskuma diidayaan aqliyan caafimaad qaba qaybta hore ku wada murmi maayaan waa qayb la og yahay oo la taaban karo waxa ay tahay laakiin qaybta bini'aadanka maanta dhex taala hadalku ku jira si cilmiya in loo baadho u baahan waa qaybtan aniga ka qof ahaan waxa academic ahaan markaynu u hadlayno aragtida shakhsiga aan soo dhaxmaray bay tahay inaan markaa soo bandhigo si cilmiya u soo bandhigo shakhsi ahaan markaan eego ama inta badan sida la isku waafaqsan yahay dadka cilmiyan nabadda seeskeeda iyo tiirarkeeda iyo waxay ku dhisanto iyo waxay ku ilaashanto taariikh ahaan sabanadii hore sabanadii dhexe iyo iminkaba dadka ka hadla cilmiyan daraaseeyay qodobka koowaad ay tilmaamaan waxa weeye in la helo wax la yiraahdo political stability ama deganaansho siyaasadeed waayo marka shakhsi laga yimaado shakhsi wuxuu leeyahay marka laga yimaado bulsho markay meel wada joogto wixii ay wada lahayd bay ka wada shaqaysaa waxa ay lahayd ay ka wada shaqaynayso haddii ay dhaqaale tahay haddii ay biyo tahay haddii koronto tahay haddii cunto tahay haddii ay nabadgelyo security tahay haddii waxbarasho ay tahay danteedii caamka ahayd ka wada shaqaynta ay ka wada shaqaynayso ayaa cilmigu bulshadu siyaasadu yaqaanaa ma aha siyaasadda aynu ka sheekaynaynaa kursi meel lagu tago oo lagu gaadho maaha waa nidaam lagu dhaqmo oo bulsho ay ku kala hoggaansanto ay isku hagto ay ku kala leexato ay isaga dambayso ku kala dambayso way nidaamka isaga hadduu deganaan ku jiro oo heehaab aanu ku jirin nabadda meesha taalana waxay noqotaa mid degan oo aan heehaab lahayn bay noqotaa
marka dunida eegto maanta adduunyada ka jirta adduunyada ama dawladaha jira ama bulshooyinka nool ama shucuubta dunida inagula nool markaad eegto ciddii systemkeeda nololeed uu degan yahay oo aanu heehaab lahayn oo uu nag yahay oo heshiis bulsho oo iyaga ahaan toos u saameeyo wada leh waxa ay haystaan nabad la oran karo waa nabad la taaban karo oo degan oo cabsi badan aan loo qabin mid dibadda kaga timaado mooyee xagga gudaha in ay istiqraar ka haysato marka deganaanta siyaasadeed aynu sheegaynaa waa systemkaasaa markaa dhisma waxaa la isweydiiyaa markaa systemka jira la haysta ee bulshada meel joogta ay haysato ma yahay mid nabadgelyadeeda u danaynaya ma yahay mid waafaqsan qaab nololeedkeeda ma yahay mid waafaqsan qaab fikirkeeda ma yahay mid waafaqsan caqiidadeeda ma yahay mid waafaqsan qiyamka iyo aragtiyaha nololeed ee ay bulshadaasi leedahay mid waafaqsan ma yahay mise ma aha hadduu aanu ahayn waxaa isku dhaca qaab nololeedkii ay bulshada lahayd qaab fikirkii ay bulshada lahayd iyo systemka isku dhaca hal tusaale inagu filan waxaad ogtihiin qabiilkii qabyaaladdu waa kala duwan yihiin dadka Soomaalida meel kastoo ay joogaan waxa halka dhigay waxa sidaa u galay waxaas halka ina dhigay deegaan aad u wanaagsan iyo dal barwaaqo iyo hawo wanaagsan locationka ilaahay uu nadijiyay waa meel aan la heli karin sida dadkani ay u eegyihiin iyo sida waxa isku yihiin iyo afka ay ku hadlayaan iyo diinta ay haystaan iyo sida ay u midaysan yihiin waa waxaan la heli karin laakiin maxaa ka khaldan waxyaabaha koowaad ka khaldan waxa weeye nin kastoo doonaya inuu qaybiyo nin kastoo doonaya inuu isku dilo nin kastoo doonaya inuu hantidooda iyo xoolaha ay haystaan ka cuno nin kastoo doonaya inuu ku dul noolaado wuxuu u garaacaa kabanka qabyaaladaaba u garaacaa marka nidaamka nololeed ee siyaasiga ah ee la raacaa ma yahay mid taa wax ka qabanaya mise ma aha oo in la isweydiiyo tusaale ahaan waxa la qaatay nooca xisbiyada badan 97kii Soomaaliland oo kale marka laga hadlayo 97kii bay qaadatay in dastuurkii la ansixiyay 2001diina loo codeeyay nooca xisbiyada badan in la qaato oo taa lagu maamulo laguna maareeyo nolosheena guud ahaan siyaasiga ah oo muftax u ah guud ahaan nolosha qofka iyo bulshadaba iyo qaybaha kala duwan ee noloshooda ay ka koobanta marka maanta dulba waxaad arkaysaa ilaa maalintii la sameeyay systemka noocaas ilaa maanta in aanay daweyn ama systemkaasi inaanu daweyn bal uu xoojiyay qabyaaladii oo noocyada nidaamka siyaasiga ah ee jira nooca xisbiyada badan aynu qaadanay sida uu galbeedka laga keenay ka yahay ama Yurubta laga keenay ama dhulka galbeedka loo yaqaan gaaladu degtay nidaamkan iskale sida uu iyaga u yahay iyo sida inagu inagu noqday laba arrimood oo kala duwan marka waxyaabaha nabadgelyada ilaa iminka khatarta ku ah waxa kamid ah qabyaaladiina waxyaabaha nooleynaya ee xoojinaya waxa kamid ah systemka jira oo ah tushana ka suumini hoostana maxay wax kale unka marka shaarka loo galiyana magacyo kale iyo axsaab siyaasiya iyo siyaasado iyo horumar iyo barwaaqo laga sheekeeyo hoosta marka loo dhaqaaqana hadii la doonayo in hal qof meel loo dhiibto ama mansab ama mas'uuliyad loo dhiibto qaabka loo wajahayo iyo waxa halbeega looga dhigaya ay qabyaalad tahay iyadoo haddana dushii laga sheegayo systemka la qaatay inuu noocaye marka systemkaasi waa waxyaabaha ka hor imanaya waa kamid marka si cilmiya in loo daraaseeyo dadka mutacallimiinta oo ay dhalinyarada ugu horeeyaan ma awoodi karaa in aynu ka fikirro wax system waafaqsan ama nidaam aynu isku xukunno oo waafaqsan sida aynu maanta inagu nahay dhibaatooyinka aynu ku jirnaan aynu uga baxi karno waxa kale oo kamid ah labo bulsho leh aragti korsan bulshadeena markaad eegto haddii system wanaagsan la keeno laakiin bulshada aragtideedu aanay korsanayn sida bulshadu ay u fikirtaa caqligeedu siduu u shaqeeyo waxyaabaha ay wax ku qiyaasto halbeegeedu wuxuu yahay haddii bulshadaasi aanay korsanayn iyadana mar waliba nabadgelyadaasi khatar bay ku jirtaa waxyaabaha aan aad u xusuusto waxa kamid ah maalin walibana la arko dhacda maalmeedka marka la qiimeynayo guud ahaan dhaca ee magaalooyinkeena ka dhaca odayga ama qofka miyi ka yimid ee weligii aan iskuul gelin ama aan far la barin iyo ka PhD-ga ah markay maqaaxi isugu yimaadaan isku siba u qiimeynayaan labaduba qabiilkii iyo qabyaaladiiba u eegayaan
meel kale kama eegayaan halbeega xashaashaqa ah ee sirta ah ee meesha dambe yaala ee wax lagu soo kala qaadanaya waxa weeye waa ka qabyaalada cilmigii iyo aqoontii la bartay iyo jaamacadii laga soo bartay iyo horumarkii la sameeyay tiknoolajiyadii timid midnaba waxba kama bedelin qaab fikirkii bulshadeena aqligeedii muu korin garashadeedii muu korin taasina waxa khatar ku tahay nabadgelyada aynu sheegayno khatar bay mar waliba ku tahay oo waxa fudud in laba qof ay isla kacaan ama laba kooxoodii simbali dhul la isku qabtay oo guri ama boos la isku qabtay oo wajiyada aan sheegay loo sameeyay in ay dhibaato weyn oo magaalo dhan saameyn kara ay ka dhacdo beer yar oo la isku qabtay oo siyaabo badan loogu kala bixi kari lahaa in markiiba wajiyada aan sheegay la saaro oo kii wax bartay ee mutacallimka ahaa iyo kii aan weligii iskuul gelin ama aan qalin loo dhiibin ay isku si u qiimeynayaan waa mushkilad ka mid ah mushkiladaha jira ee u baahan in loo kaco la daraaseeyo wax laga qabto sidee bay suuragal u tahay in bulshadan la koriyo garashadeeda jaamacadaha ardayda ka soo baxa maxaa ka siiya maxaa aqligooda u kori waayay maxaa garashadooda u kori weyday maxay uga duwanaan waayeen qayb fikir ahaan marka la eegayo shacbiga caadiga ah aan waxba baran maxay uga duwanaan waayeen marka maqaaxilis ay isugu yimaadaan maxay isku aqli u yihiin maxaa kii aan weligii wax dhigan iyo kii shahaadooyinka badan sitay ay ugu saf qura ugu jiraan iyagoo af qabyaaladeed ku hadlaya ama si qabyaaladeed u fikiraya waxa saddex ku ah cadaalad bulsho in la helo waa qodobka saddexaad ee u ahaan kara seesaska nabadgelyada dadku way isqabtaan khilaafaad baa dhaca maxkamadaha la isla tegaya meelo badan baa garbaa la gelaya amaba wax la wada leeyahay baa la qaybinaya oo dadka ka dhaxeeya ama manaasib ha noqdeen amaba ha noqdeen tacliin iyo scholarship ha noqdeen amaba hanti kale oo la qaybinaya waxay doontaa noqotee dadkii inay cadaalad helaan oo dadku ay cadaalad u helaan sinaanta iyo cadaaladdu waa laba arrimood kala duwan cadaalad baynu ka hadlaynaa sinaantu waa shay kale dadku inay siman yihiin ma dhacdo dadku waxyaabo badan bay ku kala doonaan karaan laakiin wixii ay wada lahaayeen inay cadaalad u helaan waa arrinka muhiimka ah ee ilaalin kara nabadgelyada ilaalin kara way waxaa kaloo ka mid ah tarbiya bulsho oo marka hore caruurnimada iyo ardaynimada laga soo bilaabo oo bulshadaasi ay leedahay in la helo oo wax wada yeelasho ah inay wax wada leeyihiin inay walaalo yihiin inay ul iyo diirkeed yihiin in ay midaysan yihiin waxyaabahaas oo dhan aad iyo aad bay muhiim u tahay in qiyam iyo akhlaaq iyo aragtiyo mabaadi ah oo bulshadaasi ay ilaashato oo ilaa dawladnimo lagu ilaaliyo inay jiraanna aad iyo aad bay nabad u tahay waxaan ku soo ururinayaa labadan qodob oo ah waxba tiirarka sii badin maayo intaasaa malaa baraarujin inoogu filan waxaan ku soo dhowaanayaa innaga ahaan marka toobigan aynu ka hadlayno aynu isu eegno waaqacan aynu noolahay iyo halkan aynu joogno oo Somaliland nabadda iyo Somaliland marka la isbarbar dhigo maxaa u saxan maxaa ka khaldan waa toobig aad u dheer laakiin waxay u baahan tahay inaynan isha ka lalin oo iyada lafteeda isbarbar taagno in yar nabadgelyada marka Somaliland ahaan la isdul taago marxaladaha sooyaalka Somalilanta xagga nabadgelyada dhowr qaybood baa loo qaybin karaa 19 ilaa 97 waxa la oran karaa nabadi ma jirin colaad badan baa jiray dagaalaa jiray magaalooyinka oo dhan colaad baa ka socotay qofkii soo joogay baa garan kara laakiin nimcada maalintaas la haystay waxa ay guurti baa jirtay odayaal baa jiray dadka ku galan guntada waxa uu noolaa Sheekh Ibrahim iyo Cabdi Waraabe iyo dad kale oo badan odayaal aad u waaweyn baa bulshada oo dhan ku jiray beelaha oo dhan ku jiray oo ummadda u soo gurman jiray meel kasta oo isqabad ka jirana si nadiif ah u gali jiray dan siyaasadeed kama ilahan jirin sidoo kalena kama ilahan jirin haba yaraatee wax kursi doona wax qabyaalada odayaal aad nadiif u ah ayay ahaan jireen laakiin dad baa ku dooda 32 sano nabada baynu haysanay taas waxba kama jiraan waa sheeka baralay waxa la oran karaa nabadgelyada hadda maanta qaybtan jirta waliba iyada lafteeda nabaradu ku yaalaan waxa ay soo bilaabatay 97 shirkii weynaa ee Hargeysa lagu qabtay ee la sugu wada yimid beelaha oo dhami ay sugu yimaadeen laga soo wada qayb galay heshiiska bulshada lagu galay ayay ka soo bilaabataa marka nabarkii ugu horeeyayna wuxuu ku dhacay 2003 markii la bilaabay noocan systemkan xisbiyada badan markii la bilaabay ayaa dubihii ugu horeeyay inuu nabadgelyada ku dhaco
ay bilaabatay qabyaaladii xoogaa odayaashu ay xalka u heleenna dib loo nooleeyay iyadoo hadda si kale u horumarsan oo tiknoolajiyad kale lena ay nooca siyaasadda ah ku timid oo maanta waxaad ogtahay bulshadeena inay u qaybsan tahay qabyaalad siyaasadeed ee haba yaraatee deegaan iyo dhul iyo xoolo iyo hanti kale oo ay isku haysataa midna aanay jirin marka waa nabadgelyo runtii aad khatar u ah qaybta labaad waa 79kii ilaa 2003 oo ah xilliga aan sheegayo xilli ka horeeyay oo xilli dhexe oo nabad kala guura maanta 2023 sano ugu dambeeyay buuq iyo rabash baa laga bixilayay iyo halkana dhaawac ka jira halkana wax ka yihiin ilaa maanta aynu ognahay colaado inay jiraan sida soolo kale qaar kale loo baqanaya inay jiraan laab garaac fara badan inuu jiro baqdin badan inay jirto khilaaf siyaasi inuu jiro marka halka waxaanu fahmaynaa in seeskii nabadda aynu ka soo hadalay haddii ay tahay deganaansho siyaasadeed in la helo oo qodobka koowaada in dhaawac ama nabarra ku yaalaan waxaanu arkaynaa bulsho korsan sidii loo heli lahaa weli inaynan haabkeeda hayn oo bulshadeena weli korsanaanteeda dhaawac weyn iyo nabarro weyn ay ka muuqdaan dad wanaagsan oo badan waa jiraan dhalinyaro nadiifa oo socotaa jira sida khiyaarta haddaba qaban qaabisay maayarka Hargeysa soo sidii uu ku soo baxay aanu ognahay qabyaaladii intuu iska tuuray si xora wixiisii u doontay bulshada way ku jiraan dad badan oo wanaagsan laakiin dadka aqlabiyadooda ama tirada badan ee gacanta masiirka ummadda ku haysa wax kala jaraysa ayaad moodaa in ay yihiin qaar aad iyo aad uga fog waxyaabaha nabadda ilaalin karayay marka deganaan siyaasadeed ma hayno sidoo kale bulsho korsan ma hayno cadaalad bulsho cabasho badan baa jirta idinkuba waa ogtihiin mid qofeed mid bulsho intaba maxkamadaha iyo meelahaas oo dhan tarbiyada marka la eego wax isbedela ma dareemayno oo tarbiyo badani runtii oo dadku ay weeleeyeen ma jirto laakiin waa la dadaalayaa ma aha niyad jebin laakiin inaynu ogaano nabarrada inagu yaalla dawadoodana aynu ka fikirno ayaa aad iyo aad muhiim u ah marka waxa maanta aynu taaganahay crossroad xilli aynu u baahannahay in jaamiciyiinta dadka jaamacadaha ka soo baxay waliba dhalinyarada ah habla iyo inamaba si sax ah inuu fikiraan taariikhda hore inay daraaseeyaan wixii dhacdhaca iyo wixii dadka soo maray in si fiican oo cadaalad ku jirta loo soo akhriyo dabatana laga soo saaro maxaa xala waxan waa la tijaabiyay waxyaabaha aanu tijaabinay dimuqraadiyadda ka mid ah 1969 ilaa 69 sano la tijaabiyay 84 xisbi baa samaysmay inqilaabkii militariga ka hor waxay noqdeen dhammaantood xisbi kasta qabiil buu noqday qol uu iska noqday ugu dambeyntii maantana waxaa la taaban karaa kuwa siyaasiga jira in marka aad xaqiiqadooda eegto qaabka bulshada u fikirtana aad u eegto in tarkiibka qabaliga uun iyana iska leeyihiin soo jeedimaha marka aan ku gabagabeynayaa waxa weeye waa marka hore marka qof laga bilaabo ilaa bulsho waxa muhiim ah inaynu u noqono ilaahay subxaanahu wa tacaala meel kale oo xal yaalaana ma jiro ilaa xalka inaynu u noqono mooye alislaamu huwa alxal alwaxiid wax kasta oo bini aadan sameeyay waa la soo tijaabiyay oo nabad lagu heli karayay ama nabad waarta lagu dhalin karayay waa la soo tijaabiyay waxa hubaala meelihii lagu tijaabiyay taariikh ahaan in lagu dhaqmo shariicada islaamka oo dadka lagu dhaqo lagu hogaamiyo dawladnimada lagu dhiso waxa la arkay in nabadgelyo waarta oo dadku ay isticlaadaan iyo cadaalad iyo korsanaan way dadku aakhire u jeedaan ilaahay bay uga baqanayaan in waxyaabaha la helo marka waxaan leeyahay la budda an nattabi' shar'a Allah wa nutabbiqahu waxa muhiim ah kitaabki ilaahay shariicada ilaahay wayna dhex yaalaan وإنه راعنا إيجا وإنه دبقنا وحب بنا هذا السمية ودم ولا تجابية كسب لو كعانك فرنسيسكا إلى مانتا وحن لتجابين مشيران لما أنت يوروبا هلاك يدباتو يبربر أي نكار كنا يعلاذية تقالو حلقة قرية حلقة كتيرة إن لو عرّت هاي وإلهي شرعي جيسي إن لو نقضه الله قد رقمه وحن كسر جبين يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويدي تركت فيكم شيئين لبا شيء بان إذن كجتجي لبا شيء تردارن كي النبي عليه الصلاة والسلام لبا شيء بان إذن كجتجي أتى لبا دا شيء قبستان وكودكتان أيضا ولجين أم بني
أما اللومين بان كجته بيقول لي النبي عليه الصلاة والسلام وما حي لبدا شيء كتاب الله والسنة بيقول كتابك إلهي إيه السنة إذا تأكل دكتان وقبستان ولجين أنبان ميسان أو لومي ميسان وحاو بالها دي لقب صدق أو لجو دجو واحد إحدى نيالنا أنت ولوه ليو عذوينا إن نكات كان إنه شيطان كوجو الريو ومدونا شعيل إياه هرمر أي كقاضي سو إناسا كسورنا وبلا توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.